Assalaamu calaykum dhammaantiin waan idin salaamay akhyaarta ku xidhan kanaalka kusoo dhawaada muuqaalkan oo aynu ku mari doono qaybo ka mid ah dariiqyada rushed for links lagaga dhaqmo ama xeerkaasi uu ka jiro taasi oo macnaheedu uu yahay in aynu wadada u fasaxno gaariga xagga midigta ka imanaya. Dariiqyada noocan ah waxaa inta badan lagu arkaa meelaha xaafadaha dhexdooda ah ama meelaha loogu talagalay in lagu socdo xuduud xawaareedka 30 km/h. Sida inooga muuqata muuqaalada inaga horeeya waxaad u jeedaan dad wadada ka gudbaya, baabuur guryaha hortooda ku baarkiman. Markaa waxay ku cadaynaysaa inay meeshani tahay meelo xaafada dhexdooda oo loogu talagalay in ugu badnaan 30 km lagu socdo saacadiiba. Xawaaraha ugu badan ee lagu socon karaana uu intaas yahay. Saas darteed waxa sababta lagugu yareeyay xawaaraha aad ku soconayso ama xuduud xawaareedkaagu wuxuu yahay in aanad dhibaato geysan caruur ama dad waaweyn ama dad meesha ka gudbaya aanad dhibaateyn. Isgoyska ugu horeeya ee xagga midigteena ka muuqda waa isgoys rushed for links. Gaari haddii oo halkaa kasoo baxo waxaa laynaga rabaa inaynu halkan oo kale ka istaagno iskana fiirino dhinaca midigta. Dhinacaas bidixda baabuurta ka imanaysa kuma khusayso waayo adiga ka istaagan, adiga waxa ku khusaysa meeshan xaggan qaybtan midigta waa inaad attention-kaaga usoo jeediso kadibna aad iska hubiso hadduu gaari ka yimaadana aad ka istaagto. Dhinaca bidixda markasta gaariga kaaga imanaya waxba muhiimada ha siinin waayo isaga midig ayaad u tahay, marka isaga ayaa laga rabaa inuu ka istaago. Marka aad ku jirto xaafado dhexdood ama meelaha rushed for links waxa iska caadiya inaad aragto dariiqyo la yareeyay oo loogu talagalay sida meeshan geedka oo kale calaamad casaana iyo calaamad cadaan ayaa ku taala, waxaana loogu talagalay kolba gaariga usoo hordhawaada meeshaas cidhiidhiga ah ama meesha dariiqu aadka u yaryahay ayaa loo horfasaxaya. Tusaale ahaan halkaa inagoo marna hadduu gaari inaga hor yimaado isaga ayaa laga rabaa inuu inaga istaago wadadana inoo fasaxo. Halkan waxaa inooga muuqda dariiq ama isgoys ay baabuurtu isku dhaafayaan, waana rushed for links waxaana laynaga rabaa gaariga midigta inaynu fursada siino. Halkaa inagoo taagan gaariga bidixda ka imanaya waxba ha u fiirsanin, ka midigtuun iska fiiri. Maalinta imtixaanka haddii aanad xagga midigta aad isaga fiirin oo aanad baabuurka iska hubin iskuna diyaarin inaad istaagto waad ku dhacaysaa imtixaanka. Dariiqan oo kale marka aad marayso gaarina uu kaa hor yimaado waxaa lagaa rabaa inaad fursad siiso maadaama wadadii aad isku dhaafi lahaydeen baarkinka baabuurta uu xidhay. Saas darteed meelaha bannaan ee baabuurta u dhaxaysa ayaa lagaa rabaa inaad isku badiso ama aad ka istaagto gaariga si aad fursad u siiso marka uu ku dhaafayo. Dariiqa inaga horeeya marka aynu rabno gaarigan ayaynu horgelinaa ama aynu hortiisa istaaganaa ama aynu u baydhnaa si aynu u hubino midigta. Qaybta midigta ayaa ku khusaysa waa Einbahnstraße laakiin waxaa ka iman kara baaskiil. Taas macnaheeduna waxay tahay haddiiba ay tahay meel rushed for links baaskiilka laftiisa inaad ka istaagto oo aad fursad siiso ayaa lagaa rabaa. Dariiq rushed for links haddii aad shil ku gasho ama adigu aad dhibaato geysto ood qaladka leedahay dhib weyn ayaa kaasoo gaadhaysa, qaladkii adaa lagu saaraya, ganaaxna wuu ku imanaya. Dariiqa noocan oo kale ah kana waa rushed for links, gaarigana inaga qarinaya meesha taagan. Marka halkan oo kale inaad istaagto ayaa lagaa rabaa, iskana hubiso qaybta midigta si aad u hubiso inuu gaari soo socdo iyo in kale. Kadib ayaad bidix u jeesanaysaa marka aad rabto inaad baydho. Midigtu waa inoo bannaan tahay, markaas waxay ka dhigan tahay waan socon karnaa. Bidix markaad u baydho dhinaca midigtaad wadada kasii qabsanaysaa. Wadadan oo kale haddii uu gaari xaggaa kasoo muuqdo waxaad isku badinaysaa ama daba istaagaysaa gaariga iyo baaskiilkan ilaa inta uu ku dhaafayo. Wadada halkaa ka muuqata ma geli karno oo lama geli karo, waa mamnuuc. Laakiin gaariga kasoo baxaya midigtaadu ka imanaya waa markaa rushed for links bay noqonaysaa. Meel noocan oo kale ah dariiquna iska yaryahay haddii uu gaari kaaga soo horbaxo gaarigan inaad isku beegta ayaa lagaa rabaa inta uu ku dhaafayo waayo qaybtaadii ayuu ku baarkiman yahay. Haddii uu dhinaca kale qaybtiisa kaga baarkiman yahayna sidoo kale isaga ayaa laga rabaa. Isgoyskan yar ee noo muuqda waa rushed for links inkastoo wadadu xidhan tahay haddana baaskiil ayaa kaaga iman kara, iska hubi. Sidoo kale baabuurta halkaa ku baarkiman gaariga cas oo kale waa meel cidhiidhi. Hadduu gaari naga soo horbaxo gaariga cas ayaynu daba istaaganaa maadaama uu qaybteeni ku baarkiman yahay ilaa inta uu gaarigu ina dhaafayo. Marka aad labada gaari kaa cas iyo kaa madow dhaafto xagga midigta ayaad wadadii kasoo qabsanaysaa si uu fursad u helo gaariga xaggaa kasoo baydhaya. Imikana waxaynu u gudbanaa Dreißig Zone, waa meel halkaa ay ku qoran tahay waa meel loogu talagalay in 30 km ka badan aan lagu socon. Macnaheeduna waxay noqonaysaa in ay tahay meel rushed for links ama xeerka gaariga midigta ka imanaya ayaa ka xaq mudan gaariga bidixda. Xeerkaas ayaa ka shaqeynaya. Saas darteed sidii hadda wadadii aynu kasoo gudubnay oo kale waxaa lagaa rabaa qaybta midigta inaad iska hubiso iskana fiiriso baabuurka ka imanaya.
mararka qaar waxaa dhici karta maadaama aynu bili-aadan nahay gaadhiga bidixda kaaga imanaya inuu kugu soo xadgudbo oo aanu hubinin qeybta midigta inaad adigu kasoo galayso. markaa macnaheegu maaha keliya midigtuun fiiri gaadhiga kalena indho la-aan ku mar, waxay macnaheegu tahay inaad iska hubiso iskana fiiriso labada dhinacba. laakiin muhiimaddu waxa weeye inaad dhinaca midigta xoogga saarto. adiga oo labada dhinacba iska hubinaya ayaa waxaa lagaa rabaa inaad qeybta midigta xoogga saarto, maadaama uu waxani xeer yahay, xeer dowladeed, oo hadhow haddii aad qalad ku gasho adiga qaladka lagu saarayo laguguna ganaaxayo, amaba aad ku dhacayso imtixaan aad in badan rajaynaysay inaad ku guuleysato. isgoyskan noo muuqdaana waa rest for links. gaadhi hadduu inagaga soo horbaxo waynu ka istaagaynaa, haddii kalena hore ayaynu uga soconanaa. sidii aynu hore usoo aragnay baabuurtu labada dhinac bay ku baarkiman yihiin, marka intaa udhaxaysa ayaa lagaa rabaa inaad ka gudubto. hadduu gaadhi kaa hor yimaadana inaad qeybtaada baabuurta ku baarkiman yihiin aad daba istaagto si aad fursad u siiso baabuurta kale ee meesha soo maraysa. dariiqan inaga horeeyana waa rest for links. waxaa lagaa rabaa inaad gaadhigan daba istaagto si aad iskaga hubiso baabuurta xaggaa kasoo baxaysa. wadadaas waa wado aan hore loogu sii socon karin, saas darteed bidix ayaynu u baydhanaa. waxaa lanaga rabaa inaynu midig iska hubino, haddii aanu wax gaadiid ah kasoo soconna aynu hore uga sii soconno dhinaca bidix. isgoyskaa dadku ay taagan yihiin, haddii uu gaadhi kasoo baxo ama baaskiil, waxaa lanaga rabaa inaynu ka istaagno maadaama ay tahay rest for links. gaadhiga midigta ka imanaya ayaa inooga xaqlay wadada, markaas waxaa lanaga rabaa inaynu ka istaagno. halkaa haddii uu baabuur kasoo baxana gaadhiga cad ayaa daba istaagaysaa ama gaadhigan weyn si aad fursad u siiso, maadaama ay qeybtaadii ku baarkiman yihiin. sidii aynu hore usoo sheegnay qeybta kalena saas ayaa laga rabaa. waa haddii dhinaciisa ama dhinaca baabuurta kaa hor imanaysa baarkinku uu xaggiisa yahay, sida wadadan iminka inoo muuqato oo kale. gaadhiga kaa hor imanaya adaa ka xaqlay, waayo dhinacii kale ee wadada baabuur ayaa jirta. halkaas waxaa inooga muuqda calaamadii iska jir ama iska hubi iyo calaamada hoose oo ah forfarstrasse. haddii aad gasho ama aad calaamad aragtana waxay taa macnaheegu noqonaysaa inaad ka baxday rest for links. baabuurka wadada ku jira ayaa xaqle, adiga waxaa laga rabaa inaad laynka istaagto ama aad waxoogaa ugu dhawaato si aad u aragto gaadhiga xaggaa kasoo gelaya wadada lama geli karo, laakiin gaadhiga xaggaa kasoo gelaya maadaama uu ku jiro forfarstrasse isaga ayaa kaa xaqle. halkaasaad istaagaysaa, waad iska hubinaysaa. haddii aanu gaadhi xagga bidixda kasoo socon hore ayaad u soconaysaa. iminka oo kale rest for links maaha, waayo dhinaca bidixda ayaynu fursadda siinay. sababta aynu fursadda u siisanayna waxa weeye waynu ka baxnay rest for links. dhinaca bidixda wadada ka imanaysa ayaa inaga xaq lahayd maadaama ay forfarstrasse tahay. halkanna waxay nooga bilaabmaysaa forfarstrasse kala gelaysa ama ku biiraysa. marka iyadana halkan oo kale lagaa rabaa inaad istaagto, iska hubiso bidix iyo midig maadaama ay labaduba kaaga xaq mudan yihiin, kadibna aad wadada u baydho dhinaca aad rabto. haddii aad dhinaca midigta sidan oo kale usoo baydho, waxaa lagaa rabaa hal dhinac inaad iska fiiriso oo bidixda ah, waayo wadada aad ku biirayso ayaa midiga, qeybta bidixda baabuurta kasoo socota ayaad fursadda siinaysaa. haddii aanad fahmin ereyadan badana aynu isticmaalano sida forfarstrasse oo kale, cashiradii hore ee aynu soo qaadanay ayaad ka fiirsan kartaa, dibna ugu eegi kartaa. iyada oo aynu mid mid uga soo hadalnay oo aynu usoo sharaxnay fiidiyoyadii hore ayaad dib u fiirin kartaa si aad u fahanto. haddana waxaynu u gudubnay dariiq kale oo forfarstrasse ah oo laynooga xaq mudan yahay, waxaana inagale baabuurta ku jirta. saas darteed waxaa lanaga rabaa inaan iska hubino intaynaan gelin. intaas waxaynu kusoo koobaynaa socdaalkii koobnaa ee aynu kusoo marnay dariiqyo ka mid a rest for links ama xeerka gaadhiga midigtu inuu leeyahay muhiimadda ama priority-ga oo uu ka leeyahay gaadhiga bidixda ka imanaya. xeerkan rest for linksku waa meelaha ugu badan ee dadka guud ahaan ay ku dhacaan imtixaanka proofing ama imtixaanka wadida baabuurta. inta badan dadka intaan ogahay Soomaali ha u badnaadaan, waa meelaha ugu badan ee imtixaanada ku dhacaan. waxaana rajaynayaa inaad waxuun ka fahantay ama uu waxuun ka anfacay. inta aynu ka kulmi doono cashirkan oo kale ah, dhammaantiin waxaan leeyahay nabadgelyo.